markaan dhanka ardada dib ayaan ugu soo laaban doonaa waxa inoo xigi doona markaan Sheikh Xasan Barre oo muxaadaro halkaan inooga soo jeedin bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya wad-din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in alhamdulillah thumma alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadsan wixii indhihi lahaay culimadii iga horeysay ayaa dhahday maadaama waqtiga uu yar yahay oo kooban yahay maalin jimcaana ay tahay insha Allah ta'ala waa soo gaabina sharaf waxa ku filan ciwaanka aad aragteen oo meesha ku qoran khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu yani sharaf intaas ayaa ugu filan qofka muslimka macnaheeduna uu yahay waxa idinku khayr badan qofka quraanka bartay oo dadkana baray waxa loo baahan yahay quraanka barashadiisa macallimiinta khayr Allah siiyo anaga Soomaali hadaan nahay quraanka waxaana soo gaarsiiyay macallimiinana soo gaarsiisiyo ilaa xil waxa la sheegaa xilliga saxaabada in diinta ayna soo gaartay la sheegaa intaas quraanka waxa ilaalinay oo soo waday oo yaani intaas soo gaarsiiyay macallimiinta waxa la yiri markasta uu diinka yaani uu baaliyooba waa cusboonaysiinayeen dunida karkeedana macallimiinta ugu khayr badan dadka macallimiinta oo dadka diinta baraya ayaa ugu fiican oo ugu khayr badan maxadka imaamul haramayn Allah barakeeyo xaafada maanta arday aad diinta loo baray ayuu ku soo bandhigay waxaan ugu mahad celinaynaa sida qiimaha badan oo juhdiga uu soo bixi waalidiinta ilmahaas dhashina yaani waxaan ugu hambalyeeynaynaa oo ugu yaani aan farxadda ay faraxsan yihiin aan kula faraxsanahay xafladan qiimaha badan leh oo macallinka iyo waalidiinta ay soo agaasimeen ay soo qalqaaliyeen walaalayaal waxa loo baahan yahay ardada hadda maqlaysa iyo kuwa banaanka jooga dhamaan waxa loo baahan yahay quraanka in lagu dadaalo ardayga in wax la baro oo quraanka la baro waa sahlan tahay laakiin in lagu ilaaliyo oo quraankii la baray lagu ilaaliyo oo lagu kontaroolo oo arday noqdo mid waalidkiisa anfaca tarbiya fiican helo oo waalidkiisa anfaca oo islaamka anfaca ardayga wuxuu ku noqon karaa tarbiya islaami inuu helo haddii ardayga aan la tarbiyeynin dugsiga aad la iska dhaha ilmaha dhagaxa tuura banaanka uu ka mid yahay oo ilmaha yaani dadka dhibaayo uu ka mid yahay oo dariska tuuraayo oo islaamka dhibaayo oo dariiqi laga mari leeyahay qasaaro waay waxa la rabaa marka ardayga wixii la baray oo kalaamka Ilaahay iyo sifadiisa inay iswaafaqsan yihiin la rabaa haddii marka arday quraanka yaqaan falaaga oo islaamkana aska soo hoysanaynin uu yahay هذا أنت دبعتين تهذا اللي جواي أردد هذا أنقل الجبنين أو ماشى فدسنا وحن كله دردار ميا إن أي طريقي أردد أسكال أي مران أو يكفى إذا يستان فرصة أي هايستان أو يكفى إذا يستان يعني إن أي كلام كإلهي حفظيان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قفي كلام كإلهي حفظيسن مع السفرة الكرام البررة ملائكة السفرة oo baariyaasha macooda wahaana qafkii quraanka baranaya oo ku dhibaayo iyo tactaco falahu ajraan laba ajr uu leeyahay ajrka barashada iyo ajrka uu ku dhibtoonayo uu leeyahay marka walaalayaal waqtiga gaaban waxaan yaani waalidiinta ugu hambalyeynaa meesha ilmihii ay soo gaareen macallinkii iyo waalidiintaba waxaana ka sii codsanaynaa inay laba laabaan dadaalkaas oo laba laabaan macad imaamul haramayn waqtigoodana ay ka faa'iideystaan insha Allah ta'ala hadda intaana ayaa sharaf iyo qiimo nooga filan oo kalaamkii Ilaahay annagana aan kaga soo qayb galnay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah Sheikh Xasan Barre oo halkaan muxaadaro qiimo badan inoogu soo jeedinayay